waxaan rabaa in nila wadaago qisad iga yaabis qisadaayo haysata dadka Yurubta degan intooda u badan oo miira asxaabtii Facebook si la socdeen markii dhaweyd London baan tagay haddaanu asxaab hayna waxaan jeclaan lahaa cid kastoo videoga daawatay inaad igu biirsatiin oon asxaab noqon. You can go and just say like or gem ama dheh. Qisadu waxay ahayd marka la joogo London, marka la joogo ama Ingiriis, marka la joogo caruurta waxaad u tahay adoon baad u tahay. waa iga dhab hadalkaay. caruurta adigu ma dhalin, caruurta waad u shaqaysaa. waxaad ugu shaqaysaa, dawladdu lacag bay ku siisaa. markay lacag ku siiso, caruurtu sida ay doonaan bay samayn karayaan, sida adigu doontid maaha. haddaad hooyo tahay ama haddaad aabata sida adigu doontid maaha, waa say ubadku doonaan. doonka waxaa dhacay gabadh yar ayaa suwaarey bay baxaysay ama xaflad ninbas u yaqaan, ama dee waa xaflad rag iyo dumar baa israacaya. ciyaalkan waa trayson, waa 13 jir 14 jir weyn ciyaalkan. marka hooyadeed bay ku tiri, hooyo suwaareygan baxaya. gabadhii hooyadeed iyadoo murugoonaysa ku tiri, hooyo hororo soo noqoyaa bay ku tiri. odayga aabeed baa loo sheegay. aabeed subaxnimadii wuxuu ku yidhi nayaa ma bixi kartid buu ku yidhi. marka isagu markuu sii baxayay ayuu gacanta saa u sii qatay. nayaa waan kula hadlay ma bixi kartid buu ku yidhi. tii erad way socotay iyadoo murugonaysay iskool ku noqotay. gabadhii yarad baa ku tiri, gabadh yar asxaabihiin baa ku tiri, hiblaaye nama raacisid miyaa? markaasay ku tiri, mayni ma raacayo. oo maxaa dhacay? aabbaa ii diiday inaan maxay hay'aday aan raaco. tii yar way yaabtay. suu aabba kugu diidi? suuragal say u tahay? marka tamay weydiiyey. tii yarada gaaladii way socoto, hooyadeed bay ku tiri, inanta yaraa Soomaaliyeed ee hiblaaye hebel inayna raacday rabto, aabaheed baa diiday. naagtii gaalada maxay samaysay? way socotay, dawladda u tagtay, waa u sheegtay. waxay ku tiri, naagtaa gabadha yaraa Soomaaliyeed bay tiri, aabaheed baa diiday inaa ay waxaan ku leeyahay ciyaalka raaco. dawladdii baa iyadoo booliis iyo jaandaaran ayaa gurigii loogu dhacay. markaasaa la dhihi, aw ka u diiday ilmaha inuu suwareega tago, ma hooyo mise aabbo? noo kala sheeg. marka tiri waa aabbo. aabbaa lagu yidhi, aabbo adigu waad fuude, hay alaabtaada guro bay ku tiri. alaabtaada guro. alaabtiisiibu yaroo gurtay, aqalkiibu ka baxay. halkuu tegayaa mooyaan meeshu toogay. gurna lama siina, waxba lama siina, adeer waa lagu caymadanaya. marka asxaabtii la geliyaa, wuxuu doon la geliyaa, isaga u taala. marka waxa yaaba tiyarad, laakiin markii dambe waxaa la sheegay tiyaroo dadkoo dhan ma wala xumee, tiyaroo iska wanaagsan bay noqotay. markii dambe 5 bilood 6 bilood kadib bay ku tiri, aabbahay baan doonaya. dawladdu waa timtay, aabba doon tahay, waan kuu soo qaadanayay. aabbahay marka loo keenay, waraa carad mar daba u dhow yaa waa loo sheegay. marka ilmi yar baa leeyahay, kee doonaysaa? ma doonayo, waa laga kaxaynaya. waan doonaya, waa lagu keenaya. waxa yaab weliba kaga darankii 5 ubad haddaad dhashay oo ilmo yar kaa soo dacwoodo, 5 ubada way ku daayeen. mid kaliya tamaya 5 ubada way ku daayeen. marka run ahaan dadka qurbaha ku degan dib baa haysta. dibtaa haystana waxa weeyaan iyagii oo waaweyn oo dhaqankii hooyadii aabbaha la ixtiraami jiray oo ku noolaa ayay qurbihii tegeen. qurbihiina wuxuu kuri, no is not what you think brother. wax saa u malaynaysa maaha brother. waxa weeyaan caruurtan xaq bay iska leeyihiin, xuquuq bay iska leeyihiin. xuquuqdooda iyaga ayaa boqora, iyaga ayaa kinga, iyaga ayaa queena. waa saa daraaddeed waxay doonaan u sameeyaan. dhallinyartii intooda badan waxa ay jeelasha ugu jiraan ama ay u dhibaatoonayaan waa ilmo lagu yidhi adiga ayaa ismaamulay. dee waad garan kartaa, marka aanu yareyn wax xun iyo wax fiican maanu kala garanayn. hooyo aabbaa noo kala sheegay waxa fiican waxan. hooyadii aabbii laakiin waxa lagu yiri xuduud baa leediin adeer. waad hadli kartaan laakiin xuduud baa leediin. marka waalaha dhib baa haysta. waan uga soo ducaynayaa inta ubadka laga qaatay in loo soo celino. waan u ducaynaynaa. inta kalena ayaan leenahay, inta ku socotana 10 jeer fikira intaan horta tagi meesha. 10 jeer fikira. hadalka fiidiyogan waxa aan idinla wadaagayaa waa saa daraaddeed weeyaan. arrinkaa iga yaabi weyn. dad fara badan oo maanta waxaa jira badaha ku dhacaya,
si ay Yurubta u tagaan laakiin Yurubta markay arkaan it's something different totally waa different waa wax ka duwan waxaan halan ku arkaya khayr baan ni rajaynayaa please adiguna videoga waxa dhici karta inuu qof u baahan yahay inuu jire adiguna hadaad aragtay bal la sii wadaag walaalaha kale thumbs up like iyo ama aamkana igala bakhiyo walaalkay waad mahadsantihiin